dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkan hore u soo wadnay ee ahaa barnaamijkeenu afka Soomaaliya ku bari jirnay dadweynaha Soomaaliya u baahan inay bartaan afkooda hooyo maantana waxaan idin haynaa qayb kale ku saabsan afka Soomaaliga oo ugu talagalay inaad ku barataan sida loo qoro afka Soomaaliga sida loo akhriyo daawasho wacan waxaan ku bilaabnaa qoraalka u horeeya caruur waa iyo a iyo ra iyo laba u iyo ra waa caruur hakad gali waxa ku xiga ciyaal hakad waxaanu qoraynaa ilmo kulli waa isku macno laakiin waxaanu uga jeednaa qoraalkan ku barataan ma rabnaa ilmo hakad waxaanu qoraynaa dhalaan hakad waxaanu qoraynaa weyl waad garanaysaan u malina waa weyl hakad waxaanu qoraynaa qurbac hakad waxaanu qoraynaa waxaro hakad waxaanu qoraynaa jijiil malaha waa ilmaha yaro digaaga jijiil hakad waxaanu qoraynaa sabeen hakad waxaad qoraysaa maqal hakad waxaad qoraysaan gammaan hakad waxaad qoraysaan dibi hakad waxaad qoraysaan dooro laakiin dadka qaar digaag bay u yaqaanaan dooro hakad waxaad qoraysaan geri waa taqaanaan u malaynaya geri hakad waxaad qoraysaan orgi waa o iyo ra iyo ga iyo i orgi hakad waxaad qoraysaan ido waa i iyo da iyo o ido hakad waxaad qoraysaan faras ama faraska u taqaana faras fa iyo a iyo ra iyo a sa wey faras hakad waxaad qoraysaan qooley hakad waxaad qoraysaan dagiiran waa baasha kooxda u socoto baadiyaha joogta dagiiran hakad waxaad qoraysaan geel waa ga iyo laba e iyo la geel hakad waxaad qoraysaan nirig waa midda dhadiga oo yar nirig waa na iyo i iyo ra iyo i iyo ga nirig hakad waxaad qoraysaan malay hakad waxaad qoraysaan qubo iyana badday ku jirtaa qubo waa bahaldi diinka oga badda ku jirta qubo hakad waxaad qoraysaan shooli isna waa kalluun kaloo af dheero badda ku jira shooli hakad waxaad qoraysaan xoolo hakad waxaad qoraysaan duunyo hakad waxaad qoraysaan dad waxaad qoraysaan magunge waa bahal maska u eg oo badda ku jira magunge isna badda ku jiraa hakad waxaad qoraysaan qaruunbow isna badda ku jiraa qaruunbow hakad waxaad qoraysaan biciid hakad waxaad qoraysaan wiil hakad
waxaad qoraysaan qaraabo qaraabo hakad waxaad qoraysaan waalid hakad waxaad qoraysaan saaxiib saaxiib hakad waxaad qoraysaan seedi seedi hakad waxaad qoraysaan dhadig dhadig hakad waxaad qoraysaan nabadoon marka ujeeddada intaa qoraalkaan u sameyn waxa wey inaad ku barataan habka loo qoro afka soomaaliga haddii aad had iyo jeer ku celcelisaan waxaad baranaysaa waxaad idin jeclisaan habka aad u baranaysaan afka soomaaliga mar labaad baan rabnaa in ku celino daawasho wacan waxaan ku bilaabaynaa caruur waxaan ku xujinaynaa ciyaal ciyaal ilmo dhallaan weyl qurbac waxaro jiijiil sabeen maqal gammaan dibi dooro geri orgi ido faras qooley dagiiran geel nirig malaay qubo shooli qaruunbow maguunge goroyo ri bakayle uunrays dameer wan xoolo duunyo dad biciid wiil qaraabo waalid saaxiib seedi dhadig nabadoon intaasu marka afka Soomaaliga nooga yahay marka waxa la ka baahinaa barataan afkiina hooyo waa mahadsantihiin maanta halka ayuu cashirka noo joogaa hadda waxaan noo ballanaa cashirka dambe inaan isugu nimaadno asalaamu calaykum dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool adduunyadana waxaan ka codsanaynaa inay bartaan afkooda hooyo isaga ayaa dhaxalkeennii ah waa inay bartaan sida loo qoro sida loo akhriyo inta nagu xiran intana soo booqata waxaan leenahay asalaamu calaykum I